gobolka Gedo oo ka taagan xiisad culus kadib markii mar kale ay isfarsaareen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya halkaas ku sugan iyo kuwa maamulka ee Jubbaland oo la sheegay inay kala dhaxmartay siraasaaseen xoogan iyo sidoo kale khasaare kala duwan oo aan la baahinin ciidamada dowladda halkaas jooga iyo kuwa maamulka ee Jubbaland ayaa mar kale isku farsaaray gobolka Gedo kadib markii halkaas la sheegay in saraakiil ay doonayeen inay halkaas degaan oo ay ka hortagtay maamulka ee Jubbaland saraakiil isugu jira wufuudo kala duwan ciidanka NISA iyo kuwa xooga dalka Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiin ka socda dowladda Soomaaliyeed ayaa la sheegay inay doonayeen halkaas inay gaaraan taa bedelkeedana ciidamada Jubbaland oo ka marqaata madaxweynaha maamulkaasi Axmed Islaam ayaa diiday qorshahan gabi ahaanba in saraakiishaasi wufuudaasi halkaas ay gaaraan degmada Doolow ee gobolka Gedo ay doonayeen wufuudaasi oo hogaaminayay taliyaha ciidanka lugta oo halkaas inay ka degaan ayaa gabi ahaanba laga hortagay isla markaana loo diiday in diyaaradooda ay caga dhigato halkaas kadib markii looga hanjabay inay hadii soo caga dhigato ee Doolow ay khasaare adag kala kulmi doonaan wixii halkaas ka dhacana mas'uuliyadeeda iyagu ay qaadi doonaan kama aysan degin waxay ka degeen hareeraha ee Doolow halkaas oo la sheegay inay isugu tageen iyo xiisad culus oo ka soo cusboonaatay ee gobolka Gedo waa kan mar walba ee la isku haya isla markaana lagu doonayay in lagu diro dirarka u dhaxeeya ee maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qorshiisa inuu halkaas ka abaabulo ama buu ka dhiso maamulka cusub ee New Jubbaland kaas oo caasimadiisa ku meel gaarka ay noqon doonto ee gobolka Gedo ciidanka oo sidoo kale ka amar qaata hogaamiyaha Jubbaland Axmed Islaam ayaa wacad ku maray inaysan aqbali doonin waxa ay doonayso dowladda federaalka Soomaaliya iyagoo sidoo kalena sheegeen inay diyaar u yihiin in naftooda ay u horaan ee maamulka iyo madaxweynahoodaba ciidamadan ayaa wada diyaar garow culus oo xoogan inay ka hortagaan dowladda federaalka Soomaaliya halka dowladda Soomaaliyeed la sheegay in dhowr mar fariimo kala duwan ay u dirtay ciidamadaas inay ka joogsadaan dhibaatada ay doonayaan inay ku soo kordhiyaan ee gobolka iyo sidoo kale inay isdilaan iyaga iyo walaalahooda dowladda Soomaaliyeed fariimaha ay u jeedisay ama u dirtay ciidamada waxa kamid ah warnamiyo jooga inagu yaanu isdilin oo walaalo ayaynu nahay halka ciidamada Jubbaland ay kaga jawaabeen hadalkaasi inagu kaliya waxaan u dhiman doonaa maamulkeena iyo madaxweynaheena cid kale inoo ma talinayso dowladda Soomaaliyeed waxay sheegtay in aan la isku jabin ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa maamulka Jubbaland maadaama labada ciidan ay yihiin ciidamo Soomaaliyeed oo dad muslima sidoo kalena dowladda ay doonaysay in waxyaalahaas oo idil ay ku soo dhameeyso waan laakiin taa bedelkeeda waxay u muuqataa wali inaysan socon karin in waanta ay doonayso dowladda federaalka Soomaaliya iyo qorshaheeda ku aadan New Jubbaland iyo sidoo kale hadii laga baaqdo ee qorshahaasi mayay heshiin doonaan ee maamulka ee Jubbaland iyo kan dowladda federaalka Soomaaliya horey maamulka Jubbaland waxay dacwad ku gudbiyeen ee qaramada midoobay oo ka dhan ah dowladda federaalka Soomaaliya taas oo ahayd in dowladda Soomaaliya uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay dhibaato ku hayaan ee gudaha ee maamulkaasi iyo sidoo kale caqabad inay ku yihiin guud ahaan dadka degan halkaasi shacabka degan ee maamulka ee Jubbaland ayaa fariimo noocyadeeda kala duwan hawada soo marsiiyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyagoo ku doodaya in loo baahneen dowladda Soomaaliyeed inay halkaas timaado taa bedelkeedana iyagoo isku fali yihiin madaxweynena ay leeyihiin hadii danta kaliftana ay aasan karaan villa Soomaaliya halkaasina ay u dooran doonaan madaxweyne xiisad waxay noqotay mid culus oo faraha ka sii baxaysa dowladda Soomaaliyeedna wali waxay wadaa qorsheeda ka dhanka ee maamulka Jubbaland kadib markii Axmed Madoobe ay ku sheegtay inuu yahay dambiile isla markaana ku xadgudbay shuruucda ee dalka dowladda Soomaaliya wali go'aankeeda kama aysan laaban in Axmed Madoobe oo halkaas uu ku joogo nidaam sharci darro isla markaana uu sanayn hogaamiyaha dhabta ee maamulkaasi ee Jubbaland xukuumadda hogaamiyo Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa silmada ka shaqeynaysa sidii loo aasaasi lahaa New Jubbaland oo halkaas ka jiri doonto iyadoo sidoo kalena ay ku bixinaysay qarashaad aad u tir badan kaas oo lagu doonayo in lagu aasaaso isla markaana loo yageeyalo nidaam maamul oo cusub oo awood badan isla markaana
oo ka jiri doona ee gobolkaasi. Dowladda Soomaaliyeed qorsheeda ayaa ah in maamulka madax bannaan ee ajaanibta iyo shisheeyaha ee gaar ahaan dowladaha Imaaraadka Carabta, Kenya iyo Ethiopia ay halkaasi ka aasaasto, kaasoo kaliya si toos ah ula xiriiri doono ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dowladda Soomaaliyeed ayaa ah rajadeeda inay iyadoo la tacaamusho dowlad cusub ama maamul cusub ay ka aasaasto ee halkaasi oo aan lug ku lahayn ee dowladaha shisheeye. Sidee dowladda Soomaaliyeed ay ugu maarmi kartaa dowladaha shisheeye? Weliba sidee ayay ugu celin kartaa dhammaan dowladaha ka jira ee dalka? Waxay tacaamul ay la leeyihiin dowladaha shisheeye haddii noqoto Ethiopia, Kenya iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta iyo wadamo kale ayaa ka shaqeeya ee gudaha dalka sida Qatar oo kale ayaa maamul goboleedyada xiriir la leh. Dowladda Soomaaliyeed waxay sheegtay in maamulkaasi ay ka doonayso kaliya inuu ka madax banaanaado ee dowladaha shisheeye tabadelkeedana si toos u hoos yimaado dowladda federaalka Soomaaliya. Mise daqiiqada saraakiisha ka baxay Muqdisho oo tagay Doolow waxaa hogaaminayay taliyaha ciidanka dhulka Sahal Qalib, waxaana marka hore ay isku dayeen inay ka degaan garoonka magaalada, balse waxaa ka hortagay ciidanka Jubbaland ee jooga halkaasi. Kadibna waxay ku qasbanaadeen inay ka tagaan Doolow ee dhinaca Ethiopia. Wafdigan saraakiisha ayaa intaasi kadib kulamo la bilaabay ciidanka Ethiopia ee degan degmada Doolow, waxayna kala hadleen amniga guud ee Gedo, gaar ahaan arrimaha adag ee ka taagan ee halkaasi. Dowladda Soomaaliya mar kale waxay garab ka doonaysaa inay garab ay ka hesho ee dowladda federaalka Ethiopia si ay ugu garab siiso arrimaha ka taagan ee gobolka Gedo, halkaasi oo isku hayaan ciidanka kuwa dowladda ee xoogga dalka iyo kuwa maamulka ee Jubbaland. Dowladda federaalka Ethiopia miyay la safan doontaa dowladda Soomaaliyeed oo mar kale dhinaceeda miyay dib ugu soo noqon doontaa garbisaagi ay la taagneed ee maamulka Jubbaland iyo Axmed Islaam? Waxay garab u noqon doontaa dowladda federaalka Soomaaliyeed maadaama saraakiisha ciidanka xoogga dalka ay ka galeen dhinaca Ethiopia, ayagoo Soomaaliya waxay ka galeen dhinac kale oo ay xadka ay la wadaagaan ee dal shisheeye kadib markii ciidamada maamulka ee Jubbaland oo iyagu ay ahaayeen dad Soomaaliyeed kale ay ku kalifeen inay halkaasi ay ka degaan. Arrinta ayaa sii xumaatay, waxaase sidoo kale suuragal ah in saacadaha soo socdo oo gobolka Gedo mar kale uu ka qarxo iyo sidoo kale degmada Doolow dagaal adag oo u dhaxeeya ciidanka kuwa maamulka Jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya.